السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعن داوديال waxaan rabaa inaan idin la wadaago saddex qodob oo aan u arkay hadii aad diiradda saarto inaad ku guuleysan karto ama noloshaada aad ka gaari karto guul. saddexdaas qodob waxay kaliya qodobka koobaad waa in aadan ku mashquulin mar walba tagtada. inta badan dadkeena waxaad arkaysaa inay dib u dhac ama saameyn ay ku yeelato tagtada oo ah nolosha uu soo maray, ha xumaato, ha wanaagsanaato, ha qalloocnaato, dib ha ahaato, wixii tagay way tageen. waxa mar walba adiga ku hor yaala waa mustaqbalka hortaada ka muuqda. labo, in aad focuska ama diiradda mar walba aad saarto timaadada oo ah future-ka adiga ku hor yaala. markii aad ku mashquusho timaadada oo hawlaha maalintaasi hortaada ka muuqda aad maareyso iskana ilowda wixii tagay, hubaal waxaad u sii dhawaanaysaa 80% wadada guusha. qodobka saddexaad ee ugu muhiimsan waa in marnaba aadan waqti gelin ahamiyadna aadan siinin fikradaha kaaga imaanaya dadka dib u dhaca saaxiibka oo ah. waxaad arkaysaa inta badan markaad shaqo ku jirto ama meelaha qaar aad joogto qof nolosha aan wax horumar ka sameynin, guul la taaban karo aysan ka muuqanin, hididiilo ama horkac aan lahayn, haddana markii adiga aad hawl hayso ama aad higsi leedahay ku siinayo talooyin adiga ku niyad jabinayo, taasoo ay muhiim ahayd haddii natiijo uu hayo inuu asagu meesha uu fadhiyo ka kici lahaa, balse wax natiijo ma hayo. ujeedadiisu waa inuu adiga dib ku celiyo. mar walba marka waxaa ku dadaashaa waxyaabaha dadka kaaga imaanaya sida lama qaban karo, lama baran karo, ganacsigan waa fashilmay, xirfadaha noocaana dadka ku badan, waxyaabo badan oo laga yaabo adiga inaad ka mira dhalinaydo hadii aad focus ka saarto ayay waxay isku dayayaan inay mar walba dib ku celiyaan. ha ka ogolaanin. muhiimadu waa waxa adiga aad tahay ee ma ahan waxa lagu maleeyo. dhamaanteen saddexdaas qodob hadii aan wada dhaqan gelino waxa hubaala inaan guuleysanayno, ballanteenu aan wada guuleysano. aad baad u mahadsantihiin.